dufcaddii sideedaad ee dhamaysay Quraanka Kariimka ee markaska Khaliilur Raxmaan ee magaalada Mandheera ee ku taala xaafadda Bulagara ee ka tirsan Kamoor ayaa maanta loo sameeyay socdaal dalxiisa si loogu xuso guushooda iyo dadaalkooda muddada dheer ee barashada kitaabka Alle. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. soddon arday oo dhamaystay soddonka juz ee Quraanka Kariimka ayaana loo qaaday safar dalxiisa waxaana la geeyay xarunta Mandheera Grills halkaas ay ku soo bandhigeen subac kadibna ay ku ciyaareen kubadda cagta iyo ciyaaro kale oo madadaala. المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. dalxiiska ayaa waxaa intaasi kadib u jihaystay beerta Mandheera Islamic Center ee ku taala xaafadda Boys Town halkaas oo ardayda ay fursad ugu heleen inay damaashadaan sawirro ay qaataan ayna ku raaxaystaan bilicda dabiiciga ee deegaanka. Webiga Daawa ayaa isna ka mid ahaa meelaha ardayda loo dalxiis geeyay ayagoo halkaasi ku nastay kana helay aragtiyo cusub oo ku saabsan deegaanka dabiiciga ee magaalada Mandheera. socdaalka ayaana ugu dambeyn kusoo gabagaboobay hoteelka Density ee magaalada Mandheera halkaas oo ardayda loogu sameeyay casuumaad diiran isla markaana ay ku qadeeyeen si buuxdana ay ugu raaxaysteen halkaasi. madaxa markaska Khaliilur Raxmaan Mudane Shukri Cabdi ayaa sheegay in socdaalkan uu qayb ka yahay dhiirigelinta ardayda dhamaysay Quraanka Kariimka. waxaan halka u joognaa oo meelo badan aan soo marnay ساكي أن صوب لون السفر رحلة قرآنية محان كلها هاي سفر بان صوغلني سفر كان أولجيت كي سوحوي هاي تلحيس أرضي قرآن لما يسي وسد عنوغة ومركز خليل الرحمن يحفظ كمار كويا الله كسعته إن تحفيزنا لرجلنا تشجيعنا وندهنا جزاكم الله خيرا على جهودكم القيمة مدة يكسو جران قرآن كمركا إني نفسان وي مسكحهان أدقان وي باشالان وي قصلان وي فرحان أننا أن لا فرحنا أيان وحان سومريني ميلي رادو منديرا جريلز يكسو عيارين وحان سومريني ويبقى ريبا داوة وينولي قول أركين قاركول إن سوتو سيني وحان سومريني ميلي رادو Mandheera Islamic Center iyagana markaan beerihii iyo geedihii ku yaala quruxda badan iyo miraha fara badan oo meesha ku yaala si u soo arkaan oo ugu soo baashaalaan. ugu dambeystii markaan waxaan joognaa Density ujeedkana wuxuu yahay in ardaydaas inaan farxad gelino la farxmilin quraanka Ilaahay bay dhameeyeen qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu Allah subhanahu wa ta'ala fadl Ilaahay oo ah quraanka naxariistiisa oo diinta iyo iimaanka ah arrinka muuminiinta ha ku farxeen uu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala waxay jamciyaan oo mataacu dunya ta ayaa ka khayr badan marka in lagu farxana way mudan yihiin oo la tashjiiciyo oo la taxfiiziyana way mudan yihiin ilaahayna ku mahadsan waana dafcadii sideedaad oo quraanka noo dhamayso marka ilaahayna ku mahadsan ilaahay baan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinayaa waalidiinta sharafta leh oo markaska Khaliilur Raxmaan ardayda ay dhigtaan oo ardaydan juhdiga dadaalka soo bixiyay dadaalka bixiyeen ka soo waxa way dadaalka macallimiinta ay bixiyeen iyo kii waalidiinta bixiyeen markii la isku daro ayaa intaajkan iyo khayrkan wanaagan la helay marka dadaalkii iyo wanaagii iyo khayrka halka laga sii wado warka dhankooda ardayda laftooda ayaa u mahad celiyay maamulka markaska iyo dhammaan cid walba oo gacan ka geysatay safarkaasi.
rabbi subxaanahu watacaala waxaan halkan ku xuseynaa waa kitaabkiisa. waxaan intuu u mahadcelinayaa waalidiinteyda iyo macallimiinteyda sharafta leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Mixraaj Cabdinuur Aadan oo ka socoto dugsiga Markazul Khaliil Raxmaan. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo dalxiiskan aadka u quruxda badan. kasoo farxadeyda waxaan ka dambeeya macallimiinteyda iyo waalidiinteyda sharafta leh. marka hore waxaan u mahadcelinaa Allah subxaanahu watacaala. marka labaadna hooyaday u mahadcelinaa marka saddexaadna aabbe u mahadcelinaya. marka afaraadna macallimiintay u mahadcelinaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Hana Cabdifataax Xuseen Yuusuf, gaar ahaan Bulkamoor. waxaan ku jiraa dugsiga Markazul Khaliil Raxmaan litaxfiid alqur'aan alkariim. waxaan ku jiraa ilmaha qur'aanka dhameeyey. waxaan u mahadcelinayaa madkood Ilaahay subxaanahu watacaala oo qur'aankiisa. mid labaad hooyaday aan u mahadcelinaa. mid saddexaad aabbe. mid afraad macallimiinta alif baka baqari soo beeriyay. raxmatullaahi wabarakaatu. magacaygana Asma Muuse Baraja. waxaan ku socdaa Markazul Khaliil Raxmaan oo ku yaala magaalada Mandheera, gaar ahaan Bulkamoor. waxaa u soo baxnay inaan weyneyno kitaabka Allah subxaanahu watacaala. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan macallimiinteena waxay soo bartay iyo waalidiinteyda sharafta leh. maanta farxadeydana lama soo koobi karo. waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta na geeyo meel aad u qurux badan. taasana waxaan ku mahadcelinayaa waalidiinteena. socdaalkan oo bilaabmay 8 subaxnimo ee saaka ayaana si rasmi ah kusoo dhammaaday salaada casir kadib abaare 5 galabnimo, iyadoo ardayda ay dib ugu laabteen guryahooda iyagoo farxad iyo mahadcelin muujiyey. Ibraahim Nuur Cabdiraxmaan, Countiga Mandheera.